waxaan idin hayaa dhacdo ka duwan goobaha liibiya amaba dhinacan saxaraha bal waxaynu eegi doonaa tahriibta dalkaasi yeman halkaa waxaa ka socota ganacsigaasi waa noocee dabcan waad isweydiinaysaa daawada ma aaminsan tahay in dunidan korkeeda aynu joogno in ganacsiga ugu weyn ee xilligan ka socda uu yahay ka shaqaynta amaba ka taajirka xubnaha jirka bini'aadanka iibinta biicinta xuubsiibidda iyo weliba kaliyasaarka doowareenka dadka bini'aadanka ee jirkooda loo geystaa waxa uu ka noqday caalamka wax caadi ah oo weliba lacag badan iyo ganacsi fara badan laga sameeyo toddobaadkan waxaynu eegi doonaa dalka yeman kumanaan tahriibayaal u dhashay waddankaasi etoobiya iyo weliba soomaaliya waxay u yaacaan dalka yeman qaar badan ayaa la laayay meel ay jaaniya cidhib dhigeen haddaba dadkaasi marka ay ku degaan xeebaha dad ayaa intay afduubaan isla goobtay kaga degeen doontaba ka haysta oo meelo ku xidha waa sheeko aan dadka loo sheegi karin jilbiska saxaraha ku jilaabto dadka war miyaad ka haysaan waa socodkii junuunka ahaa iyo jaahwareerkii jujuubka ahaa oo jihada marankiisu jidkiisu jahannaba la jaad yahay jawigiisuna daran yahay يحركوهن رجال يعني حرمة يتصبوا رجال يحركوا ويضربوا ضرب يكسروا iibsashada afduubka dhaca boobka jirka bil'aadamka ee loo geystay tahriibayaasha waxa ay noqotay waddanka Yemen arrin ay dhibaato dad badani kala kulmaan dadka ajaanibka ah falalka naxdinta badan ee isugu jira jilaabashada iyo afduubka ay kooxahan burcadka dadqaleedka ahi ee ku sugan waddankaasi ku fuliyaan ayaa noqotay mid ay si weyn ugu sii xoogaysteen waxaanay arrintaasi galaafatay boqolaal masaakiina oo markii horeba halkaa ku gaadhay si nafla caarida sanad walba waxaa badda ka soo gudba u dhaxaysa waddankaasi yeman iyo soomaaliya kumanaan tahriibayaal isugu jira etoobiyaan iyo soomaali kuwaasoo raadinaya nolol himilo qurux budhoodii ay ku xijaabato haddaba dhibanayaasha iyagu arrintani la soo daristay ayaa gabadh ka mida dadka iyagu halkaasi maray waxay ka hadlaysaa xaaladihii ay kala kulantay halkaas dumarka way khasbayaan raggana way gubayaan meel kastana way ku dhufanayaan wax kastana waxay kala baxayaan xataa indhaha qofka way la baxayaan kumanaan ka badan inta qof ee lagu laayahay waddada halka qaarna afduub loo haysto kuwaasoo tacadiyo argagax leh lagu sameeyo muddada ay gacanta ugu jiraan kooxdan qowlaysatada ah ee budhcadadqaleedka dembiga ay u cuskadaan masaakiintan ayaa xukunkiisa ay ugu magacaabaan madaxaha ku furto ama ehelkaagu ha kaa bixiyaan qiimaha ay u jaraan bahallada halkaasi ku sugan waxayna kuwa aan la qalin ee xubnaha jidhka lagala bixin ay soo wajahaan cadaab iyo cadibaad aad u daran kuwaasoo la mariyo midka kiisa ugu xanuunka daran waxay ka gubaan jidhkoo dhan waxay la dhacaan mindiyo habeenka iyo maalintuna waa imtixaan adduun midka ugu hoogga badan milatariga dalkaasi Yemen waxa ay noqdeen kuwa ka qayb ah burcadadqaleedka waxaanay dadka u geystaan falal isugu jira tacadiyo afduub iyo iibinta dadka jirkooda oo halkaasi ka noqotay arrin suuq weyn leh sheekadani waa mid ka mid ah dhacdooyinka xaqiiqa raadintoodu aad ay u khatar badan tahay saalax sabri waa mid ka mid ah dadka si hor Ilaahay isu xilqaamay una ururiya isla markaana aasa dadka tahriibayaasha ee meydkooda lagu laayay halkan goobtani waa mid ka mid ah goobaha ugu weyn ee hilibka dadka lagu iibiyo lagana saaro kaliyaha beerka iyo meel kasta oo biic loo heli karo halkan kama gudbi kartid mana carari kartid waxaana ku hor taalla isbaaro ay ka shaqaystaan kooxahan isugu jira kuwa ka shaqaysta maandooriyayaasha iyo iibinta dadka tahriibayaasha ah maanta saalax waxa uu aasayaa mid ka mid ah dadka Soomaalida iyo Etoobiyaanka ee sida bilaaxadka ah ugu qulqula kaasoo jirkiisa inta la qalay wixii laga soo reebay cidla lagu tuuray 200 3 4 كم مليان اللي رصاص في الحدود اللي مشنوق اللي يعني ضرب
imise ayaa la dilay imise ayaanu aasnay tiro ma laha inta sidan oo kale loo dilayo ee aan sidan cidlada aan uga helno ma la xisaabin karo inta miskiin ah ee meyda ee aan la garanayn wax ku dhacay iyo welibana cid dishay waxaanay dawladdu tiraahdaa badanaa dhimasho caadiya ayuu dhintay qofka waxa uu filimku ka bilaabmaa halkan biyaha markay soo gudbaan ninkani waa mid ka mid ah kuwa dadka iibintooda ka ganacsada wuxuuna ku shaqaystaa dooni uu dhinaca Sacuudiga ugu soo gudbiyo tahriibayaasha wuxuuna mid kasta ka qaadaa 900 oo lacagta Mareykanka ah oo dollar Afrika ilaa dhulka Sacuudiga wuxuu noo sheegay in ciidamada badda ay Yemen ay ka qaadaan laaluush marka uu halkan soo gaaro قيادة الجيش قيادة الأمن السياسي قيادة الأمن العام تأخذ أجرتها معها مندوب العمل ciidamadu waxay naga qaadaan laaluushkooda waxayna leeyihiin wakiil u xil saaran hawshaasi si aanu shaqada u sii wadano haddaan bixin weyno lacagta dabcan wax walba nooma soconayaan wuxuu ka qaaday tiro 40 qof ah taasoo ah mid aad u adag waayo aad buu u yar yahay laashka uu wato balse waxa kaliya uu danaynayaa waa in uu lacag helo wax kale uu dan ka leeyahay ma jirto sidaad aragtay shimbirahan daba socdaa waxay iyaguna ka wehelinayaan safarka kuwaasoo iyaguna ka dhar sugaya haddiiba cidii ay ku dhex dhimato doonidaasi ama laga toorayo in halkaas iyaguna ay risiqooda ka raadsadaan tan iyo halka ugu horeysa ka soo fuulaan iyo halka ugu dambaysana waxay yihiin kuwa safarkooda uu ku lamaan yahay isla markaana sugaya ilaa inta qof uu loo soo tuurayo goobtanna marka ay soo gaadhaan waxaa halkaasi ku sugan kuna sugaya afduubayaal kale oo ka ganacsada jidhka qofka bini'aadamka halkanina waa goobta ay ka haystaan intaanay ku nagaanin oo aysan nasanba in ka badan 10,000 oo qof ayaa bil walba halkan ka soo xaadira kuwaasoo raadinaya inay helaan nolol wacan oo ta ay ka haajireen ay kaga baxaan waxay si afka uga galaan khatarta midda ugu daran ee bini'aadam naftiisa uu mariyo markay halkan soo gaadhaan ma jirto wax lacag ah oo jeebadooda ku hadha waxaa marka horeba ka farmaroojiya waxa yar ee ay sida naflacaariga halkan la yimaadeen raaca ugu horeeya burcadqaleedka waxaanu xerada qaxoontiga kula kulannay haali oo ah dhibyaano ay tacadiyo si arxan darro ah ugu geysteen kooxdan bahallada ahi wuxuu yidhi burcaddu markaannu badda ka soo baxnayba oo gaadhnay xeebta markiiba wayna qabteen markaas oo ayna xidheen ilaa ay naga dalbadeen lacag madax fulasho ah dadka qaar aan lacag haysan waxay kala baxaan keliyaha qofkii awoodi waaya in lacagta lagu xidho uu iska bixiyo wuxuu yidhi waxaa halkan ku sugnaa burcadqaleed aad u badan oo aan naxariis lahayn oo naxariis laawayaal ah mana fududa siduu qofku uga baxsado ama loo sii daayo ilaa reerkooda ay lacagta bixiyaan inta ay i qabteen oy meel walba iga xidheen ayay habeen iyo maalinba i jirdili jireen waxay iga gubeen haragga jidhka oo dhan ilaa reerkayagii ay khasab ku noqotay inay bixiyaan lacagta la ii haysto taa waxaa ka sii daran markay i gubayaan waxay xanuunkayga maqashiin jireen waalidkayga intay teleefonka u garaacaan waad aragtaa meelaha ay iga gubeen qorshaha dhalintan socodka ah ayaa ah inay shaqo u tagaan waddanka Sacuudiga balse nasiib darro waxay burcadqaleedku ku haysteen cidlo muddo ka badan 20 cisho wadadana waa halka ugu horeysa marka ay xeebta ka soo degaan ay soo maraan tahriibuhu waddanka Sacuudigana waxay in ka badan 550 kiiloomitir ka bilaabaan inay u lageeyaan halkan taasoo ay ku qaadato haddii ay nolol ku tagaan muddo ku siman 40 maalmood ama in ka badan in halkaa ay u sii socdaan. Saudi. What do you expect to find when you get there? المزرعة ولا بقر ولا إبل ولا غنم كله على كده. Have you had any trouble so far making this journey?
ايوه يمسكوا يفتشوا هنا قدام يروح ما في زفل الا على طول الزفل تروح تعالوا يقول له بعدين هنا يسوي جلس بعدين يسوي تفتيش يشيل خلاص. Who took your money and where did this happen? في شيء يأتي في شيء كبير متوى بعدين يشيل شباب كله شباب يسوي تفتيش يسوي كوف يدربوا كلام بعدين يشوفوا. waa mid aad u khatar badan inay socdaan habeenkii waayo socodka aan nasashada lahayn ee 500 kilomitir ee saxaraha iyo jawiga darani waa mid aad ugu adag in qofku sii wato socodkiisa waayo waxa ku lamaan hafi kulayl iyo haraad aad u daran daawade socodkan junuunkaahi waa mid qalbi jab iyo aad u muruga badan xasuustiisu waana mid aan ka hadhin mahadhada xanuunka badan ee xasuusta aadka u qarraban ee dhibanayaasha gacanta uga gashay argagixisada dhaca jidhka bini'aadamku ay marsiiyaan dalkan Yemen hadda kama jirto dawlad xoog leh oo sharci cadaalad ah ku dhaqanta kuwooda ciidamada ah ayaa iyagu noqday qayb ka mid ah xulufada aftuubta ee isla markaasi jirdilka dhaca hilibka qofka bini'aadanka ka shaqaysta kani waa mid ka mid ah dhalinta baadi goobaysay isaga iyo saaxiibadii inay shaqo iyo nolol ka helaan waddamadan carabta balse nasiib darradu waxay tahay wuxuu ku waayey laxaadkiisii jirdilkii dabkii iyo korontadii maalin walba ay ku fulinayeen ee isla markaasi ay ku samaynayeen burcadadqaleedku qaarkood baa ay dilaa qaar baa meel intay igu xidhaan madaxii foorariya dhowr habeen aan ku xidhnaadaa dhiigga sanka iga socda gacmaha iyo lugahana way iga jajabiyaan siday ii garaacayeen nolol adduun waan ka samray aniga saaxiibkay siday u dilayeen ayuu ku dhintay waa 23 jir isagoo soconaya reerkoodii ka soo ambabaxay wuxuuna hadda isagoo curyaana ku sugan yahay xerada qaxoontiga markii ugu horeysay ee ay afduubaan bahalladu wuxuu aabbihii oo iyagaba xaalkoodu yahay mid aad u daran maadaama ay qoyskaasi ahaayeen qoys danyar ah oo aad u faqiira ay ka codsadeen in naftiisa uu ku badbaadiyo lacag dhan $300 haddii la waayase qudha ayay ka jari doonaan waa hadalka ay ku gunaanadeen maskiinkan aad aragtaan ee sariirta dul yaal 3 maalmood gudahood ayaa aabbahay ku bixiyey lacagtii madax furashada ahayd laakiin nasiib darro ima ay siideen oo waxay iga iibiyeen budcad kale oo ay qafaalatay muuqaalkani waa mid sir ah oo laga soo qaaday kaamka qafaalashada waxayna muujinayaan oo markhaati ka yihiin cadaadiska iyo gaboodfalka halkaa yaalla ee sida arxandarrada ah qofka bini'aadamka loogu cadibayo qaar badan baa sida loo garaacayo ku miirbeela qaar baa halkaa jidhkoo dhani dab looga gubaa waxaa u sii dheer gaajo aad u daran waayo lama tuso wax naxariis ah inta badan waxaa lagu fuliyaa in keliyaha ama beerka laga siibo waxay masaakiintani u dhintaan rafaadka baaxaddegga ah iyo xanuunka xoogga badan ee ka soo mara muddada ay halkan ku jiraan kooxdii cusbayd ee qabsatay xaali waxay shuruud uga dhigeen in $250 ehelkiisu bixiyaan waa mar kale oo haddana ay koox labaadii ay qabsatay balse taasi ma dhicin oo reerkoodii awalba waxay ahaayeen faqiir aan awoodi karin mar kale inay lacagtaa bixiyaan waayo iyagaaba ahaa xaalkoodu kuwa aan sida caadiga ah u heli masaariifta nolosha kanna wuxuu ahaa rajadii qudhahayd ee iyaga u maqan way dhaawaceen si aad u daran ma isticmaali karo suuliga mar kale waxaana qof baarlaysidha oo faali ku dhacay xaafi waa 23 jir mar kale dib umuusan lugayn xaafidoo qudha ma aha kuwa nasiib darradu ay ku dhacday tahriibtani ay asiibtay halkan xerada ah waa halka qudha ay badbaado ku heli karaan kaamka waxa ka buuxa kumanaan la soo aftuubay kumanaan la soo kubsaday iyo kuwo badan oo tacaddi iyo xubsiibasho doocwareen ah oo jidhkooda xubnaha qaar laga saaray wuxuuna mid kasta hadda doonayaa inuu lagu celiyo waddankiisii maadaama xaalkii faraha ka baxay oo naftiisii ay khatar ku jirto
qaar badan baa dareen farxadi ku jirto ku qiimeeyey siday u badbaadeen iyo inay noqonayaan waddankoodii iyagoo nool ifta waa gobol 17 jir ah waxay aabbaheed kaga soo safartay inay reerkooda gacan qabanayso asma gabadha midigta xigtaa waa 16 jir waxayna doonaysay inay u tagto walaasheed oo sacuudiga ku nool labada habloodba waxay gacanta u galeen bucdadgaleedkan naxariis laawayaasha ah muddo ku dhan 3 bilood ayay ku haysteen meelaha ay dadka xareeyaan ifta waxayna aad ugu xishootay inay waalidkeeda ama aabbaheed inay la hadasho oo tidhaahdo lacagta madax furashada ah iga soo bixi waayo waxay tidhi way igu adag tahay aabbahay wuxuu haystay aniga oo qola wuxuuna sugayey aniga inaan wax u geeyo amaba qoyskayga aan caawiyo balse taasi waxay ku adkaatay ifraax inay wax lacaga ay weyddiisato waalidkeed waxayna u badheedhay halis kasta in nafteeda la marsiiyo intii ay taa samayn lahayd waxaa markaa kadib budhcaddii ay bilaabeen jidhkooda inay ka ganacsadaan oo maalin kasta ay ku iibiyaan rag fara badan kana kireeyaan qasab baanu ku daawannay sida ay u gelayeen hablihii kale ee naga horreeyey hortayada ayay qaar ku qabsadeen oo ay ku dileen wayna cadaabeen oo na bahdileen way ku iibinayaan sida ay doonaan ayay kaa yeelayaan haddaanad u samaynin sida ay rabaan iyagu maaha iyadoo qura cidda noo xaqiijisay inay ahaayeen kuwa afduubka geysta ee dadka qasba inay yihiin askarta milatariga ee waddankaasi yaman asma intii hore way ka gudubtay xuduuddii ugu horraysay askartii yamanta balse aakhirkii askartii way heshay dharka askarta milatariga ah ee waddanka yaman waxaannu moodaynay askar markaannu aragnay aad ayaannu ugu faraxnay oo miciin baannu moodaynay waxaannu isnidhi waad ka badbaadeen budhcaddii kumaanaan fikirayn inay sidaas nagu samaynayaan sideed ku ogaatay in laydin iibiyey ama lacagta laydin siistay intay dhammayd maxaase ku garatay in aad tihiin dad baayaca oo la iibsaday maanaan arkayn lacag laakiin baaqyada faraha ayaan ka gartay waxaanse maqlaayay mid ka mida oo teleefon ku hadlaaya ma taqaan intay kugu iibiyeen sidaan maqlay qiimaha gabadha quri waa $260 ስንት ገንዘብ እንደሆነ ግን እኛን በኢትዮጵያ 50 ሺህ ብር አሳውቁ ከዛ ትሄዳላችሁ ሱዑድ ትገባላችሁ አሉን muddo 2 bilood ah waxa maalin kasta jirkeeda ganacsi ahaan lagu karayn jiray 2 nin ama ilaa in ka badan 3 nin hadday diidase xaalku wuxuu taagan yahay in la jirdilo oo mararka qaar cuntadaba laga soomiyo. I spoke to some of the people who run this camp and they say they've heard other stories like this, that men in Yemeni military fatigues captured women, sold them to rapists and in some cases raped them themselves. qaar badan oo dadka ku jira kaamkan waxay noo cadeeyeen askarta Yemantu dumarka ay qabtaan kadibna ka iibiyaan xiriyaha afduubka. waa markii ugu horeysay ee qof journalism uu booqdo xiriyaha burcadqaleedka waxaanu halkaasi kula kulannay officer Saif oo waraysi aanu kula yeelanay mid ka mid ah askarta xiriyahaasi joogta ayaa nala socday oo isagu noo sharaxayay wadada iyo xaalka ka jira markaanu soo gaadhnayba mid ka mid ah ilaalada ayaa orday oo si uu u raadiyo cidii mas'uulka ka ahayd halkan inuu noogu yeedho arrinta xukunka halkaasi ayaa hoos imanaysa qabaa'ilka halkaasi dega haddii kaamku furnaanayo iyo haddii la xidhaayaba waa mid qabiilku ay go'aankooda leeyihiin wax dhibaato ma jiraan soo gudba martibaatiin soo dhaafa gudaha 5 nin oo maxbuusa iyo 2 ilaalaa ayaanu ugu tagnay gaarku kuna dul taagnaa fursadna waa namuusinin inaanu si xor ah u wareysano imisaad halkan ku joogteen 3 sidee ayaa lagula dhaqmay iska wacan mid ka mid ah gaarka ayaa dhinaciisa taagnaa waxaanu iska dhigayay inuu walaalkii yahay raalliyahow kuma tahay adigu ani Ethiopian mani meeshan Ethiopian wuxuu iska dhigayay Ethiopian You want to go
waxaanu leeyahay waxaanu socdaa Sacuudiga ma dadkan ayaa idin soo qabqabtay ma lacag bay idinka rabaan isagii ayaa noo jawaabay oo leh maya haddana waxa uu leeyahay aniga ka mas'uula waxa uu matalayaa amaba uu iska dhigayaa inuu Itoobiyaan yahay oo kale luqadda ayaanu jajabinayaa waxaanu ku nidhi mana raaci karayaan waayihee يبغى سعودية يبغى سعودية What is he saying? He's saying that they want to go to Saudi Arabia. المملكة. They don't want to come with us. They need the money. markaanu gudaha u sii soconay waxa ku yaala qol yar waxa uu leeyahay qolkan dumarka ayaanu u isticmaalnaa inaanu ku xarayno oo aanu ku xidhno waxaanu ka dalbaday inaanu gudaha galno wuuse noo diiday oo waxa uu yidhi cidi kuma jirto annaga oo maqlayna cod dumar ah iyo rag ku wada jira meesha kabahoodiina ay yaalaan askartuna waxayna leeyihiin ha garaacina albaabkan. Behind the door, I can just hear voices. The soldier is told not to knock. We've just been told the room here is what the torturers use for rape. We can hear the sound of a man and a woman in the room. labadii gaar ee dhinacyadayada taagnaana way naga tageen hadda marka waxaanu fursad u helnay saddex dhalinyaro ah oo si run ah noogu waramay waxaana yiraahdeen waxa aanu ku jirnaa cadaab waxa aanu weydiinay sida ay ula dhaqmeen nimankani عشاء وقدام ليسي وحان سيغتشيرنا حالة قراعيس ديل إلهي دي حانو سهلي وين هدير هركي ودي لعقتنا بيحين ويانا وي دينا ديليان عديبات قفل مريانا دا وين قسطا مينيان حان ويديني ما اسكو دايدين إناد بحث وحا جراغانا إلى شانيا هدان اسكو داينا إنان بحثنا waxay haystaan mooto qoryo wayna soo qabanayaan markaa isku maanan dayeen markaa kadib waxaanu la kulanay ninkii sarkaalka ahaa ee aanu la ballansanayn ee Seef waa ninka xukuma kaamkan oo amarkiisu ka socdo. How are you treating the people here? Are you treating them badly? حرام هذا حرام هذا مش ما حد يعذب والله حرام ما نقانا نروح عسكري يكون أنا ما صقله ولا إحنا راضين بهذا الكلام أبدا ولا فيش حد يجيب القوة هنا. And what sort of relationship do you have with the local police and army? ما نقانا أنا وحاس بليس كي ملتري كي لو الشقيق ما كده حيسا وحنا نقبلنا هدو حي حدود هاي كساحة قدبان. هكذا يجي بنفسهم يدخلون مكان يسألوهن ويروحون بفلوسهم. واحد تمري هذا ما كله شوغان. مايا تمر يوحس أنا ما قابلنا من شوغان مش هذا. shukran annaga oo dareemayna inay halkaasi ku jiraan cod dumar ayaa haddana ay naga qariyeen inay noo sheegaan inay meeshaasi joogaan dumar kadib waxaanu tagnay saldhig boolis oo ku yaalay goobtaasi waxaananu uga warranay xaaladii aanu ku soo aragnay halkaas. The camp were released. halkan waxaa ku yaala ilaa 200 oo kaam oo dadka sidan loogu haysto haddaba ma jirto qolooyinkani cid ay ka naxayaan oo ay u jiid naxariisanayaan ilaa ay helaan waxa ay ka doonayaan kuwa badan ayaa ku dayacan dariiqyooyinka iyo wadooyinka dalkaasi Yemen kuwaasi oo waxay cunaan iyo meel ay seexdaan midnaba aan haysan. The mortuary warcid alla cidi halkaas soo marta mid aan u naxaynaay ma jiro anagu qof ma aanu naxnaa kaanu naxnayna waa kaanu ka qaadna waxa uu soo diro hadii aanu ka weynana waa karadhow hadii aan waliba idin sheego anagu haday isha tahay haday kaliyaha tahay hadii ay beerka tahay hadii ay far dhaqaaqaysa tahay intaba anagu hadii aanu qofku wax ka weyno sideedaanu iibinaa waana xanoo jooga gaari xagga dambe furan marka adeerkii manayo waar soo socon ku leeyahay adeer annaga boolbool ku kala saarna sidii gawaadhide eedade kaalay waliba ka
حرم ورجال بيلبسوا لبس النسوان ويصيروا ياخذوا الاطفال سمعتوا ولا لا ويهربهم داخل شوالات او يبيعوه او انهم من يبيع مدري الكلى او يبيعوا الكبد او يبيعوا rag iyo dumarba waxa ay labisan yihiin dharka dumarka indhaha ayay xiran yihiin waa tuugo ku cusub waddanka carruur iyo dhallinyaro toona may reebin waxa ay ka soo afduubanayaan waddan kasta waxaa inta badan la xaqiijiyey inay kala baxaan beerka keliyaha waannu yaabannahay waxaannu ka yaabannahay waannu ka amakaagnay burcadadqaleedkan oo ummaddii dhammaysay ilaa haddana ma jirto cid wax ka qabanaysaa arrintan naxdinta iyo anfariir kale sharciga halkan yaalla ciddii lacag haysata uunbaa istaahisha inay noolaato oo ay ka badbaado dhibaatooyinkan faraha badan waa socod siraha iyo surimo saqdhexe la safrayo saacadaha lagu jiraana waa saxariir siloon iyo silicii noloshu saami qaybsi weeye sahankii noloshu qofka siduu ku sameeyey الصوماليين أضافوا عبء كبير على اليمن من ناحية كلاجئين لكن يعني تعرضوا أيضا لبعض ضعفاء النفوس الذين يلتقطونهم سواء من قوارب عن طريق سماسرة أو يأخذونهم من الطرقات. ay u soo gudbaan xuduudda Sacuudiga in badan ayay la soo daristaa xaalad aad u adag oo ka naxdin iyo anfariirba badan xaaladii hore ee ay ku sugnaa wiilkan aad arkaysaan waxa ay waxyeeladani ka soo gaadhay xuduudda u dhaxaysa waddanka Sacuudiga iyo Yemen oo uu qabsaday darbiga korontada ama basiliga korontada xuduudda labadaasi waddan u dhaxeeya waxa uu sidoo kale noo sheegay in saaxiibkiina halkaasi uu ku geeriyooday waxay dunidu isku wada raacsan tahay in ganacsiga ugu weyn xilligan jir uu yahay iibsiga jirka bini'aadanka xubnihiisa dalkani Yemen howlahan imika ka bilaabmay waxay yihiin kuwo ku cusub hase ahaatee wuxuu saameyn ballaaran ku sameeyey guud ahaan qaybo iyo weliba qaab kasta oo dadka socotada ah ee halkaasi isaga gudbaya loo dhigto dabina qarsoon is one of the most profitable businesses in the world now and if you can see the numbers it seems that there is big business going on I have personally asked one of the kids here how much did it take for him to get here and he says $400 and if you're looking at daawada sidaad arkayso sicirka qofka bini'aadanka wuxuu gaaray oo weliba aad loo jecel yahay ubadka yaryar ee dhallaanka ah kuwaasoo meelo badan laga soo xado layskuna keeno halkan iyagoo laga soo waarido dalalka u dhow geeska Afrika ilmaha yar ayaa lagu kala iibsadaa $400 waa la yaab qof bini'aadan oo naftiisii lagu iibinayo qiimahaasi wiilkan aad aragtid waxaa laga saaray qayb ka mid ah xubnihiisa jirkiisa siiba kalidiisan أخذوا الكلية حقتك؟ هم قالوا حصاء بعد عندهم الحصاء. أنت ما تدري؟ ماشي احنا داعي. أنت نمت بس؟ صحيت من النوم حصلت كليتك مو موجودة؟ على ما شفنا في الكشاف أنا لسه الكلية. ku darso daawadaha qiimaha badan oo halista iyo aafada ka jirta halkani ma aha mid lagu sharaxi karo faallooyinkan ka kooban ay kaga hadlayno macluumaadka qarsoon ee halkaasi yaala intii gabagabada socodkan halista ee khatarta ah ee dadkani ay naftooda ku biimayaan dalalkaasi ee ay u socdaan ayaa xaalku yahay nolol iyo geeri waa laba dhinac dagaal geesood ah oo kaga socda dhanka Sacuudiga iyo dhinaca Yemenintaba kuwaasoo qaxoontiyada halkaasi ku nooli ay naftoodu mararka qaar ay gasho in xaalado aad u halis ah oo wali ah ay cisbitaalada la galaan
هذا الوقت. guntii iyo gabagabada barnaamijkan ayaa daawadaha qiimaha badan oo aad ku aragtaa tacadiyada iyo dhibaatooyinka baaxadda leh ee ay dhalintani marayaan muddooyinka ay ku jiraan safarkan halaaga iyo halista badan tanna waa fariimihii wacyigelinta wadiiqada wadka tahriibta wiil iyo gabadh baa masiibada waayaha adag waagu ugu bariyo haddii aan ku waayo una wada jirin waqtaa jire wajirigo haddii kale waqlada tumo anna wiidar aan guro oo ay ku dileen wayna cadaabeen oo na bahdileen way ku iibinayaan sida ay doonaan ayay kaa yeelayaan haddaanad u samaynin sida ay rabaan iyagu maaha iyadoo quraacidda noo xaqiijisay inay ahaayeen kuwa afduubka geysta ee dadka qasba inay yihiin askarta milatariga ee waddankaasi yaman asma intii hore way ka gudubtay xuduuddii ugu horraysay askartii yamanta balse aakhirkii askartii way heshay dharka askarta milatariga ah ee waddanka yaman waxaannu moodaynay askar markaannu aragnay aad ayaannu ugu faraxnay oo miciin baannu moodaynay waxaannu isnidhi waad ka badbaadeen budhcaddii kumaanaan fikirayn inay sidan nagu samaynayaan sideed ku ogaatay in laydin iibiyey ama lacagta laydin siistay intay dhammayd maxaase ku garatay in aad tihiin dad baayaca oo la iibsaday maanaan arkayn lacag laakiin baaqyada faraha ayaan ka gartay waxaanse maqlaayay mid ka mida oo teleefon ku hadlaaya ma taqaan intay kugu iibiyeen sidaan maqlay qiimaha gabadha quri waa $260 ስንት ገንዘብ እንደሆነ አያውቅም፣ ግን እኛን በኢትዮጵያ 50 ሺህ ብር አሳውቁን፣ ከዛ ትሄዳላችሁ ሱዑድ ትገባላችሁ አሉን። muddo 2 bilood ah waxa maalin kasta jirkeeda ganacsi ahaan lagu karayn jiray 2 nin ama ilaa in ka badan 3 nin hadday diidase xaalku wuxuu taagan yahay in la jirdilo oo mararka qaar cuntadaba laga soomiyo. I spoke to some of the people who run this camp and they say they've heard other stories like this, that men in Yemeni military fatigues captured women, sold them to rapists and in some cases raped them themselves. qaar badan oo dadka ku jira kaamkan waxay noo cadeeyeen askarta Yamanta dumarka ay qabtaan kadibna ka iibiyaan xiriyaha afduubka. waa markii ugu horeysay ee qof journalism uu booqdo xiriyaha budhcad waxaanu halkaasi kula kulannay officer safe oo waraysi aanu kula yeelanay mid ka mid ah askarta xiriyahaasi joogta ayaa nala socday oo isagu noo sharaxayay wadada iyo xaalka ka jira markaanu soo gaadhnayba mid ka mid ah ilaalada ayaa orday oo si uu u raadiyo ciddii mas'uulka ka ahayd halkan inuu noogu yeedho arrinta xukunka halkaasi ayaa hoos imanaysa qabaa'ilka halkaasi dega haddii kaamku furnaanayo iyo haddii la xidhaayaba waa mid qabiilku ay go'aankooda leeyihiin wax dhibaato ma jiraan soo gal soo gudba martibaatiin soo dhaafa gudaha 5 nin oo maxbuusa iyo 2 ilaalaa ayaanu ugu tagnay gaadhku kuna dul taagnaa fursadna waa namuusinin inaanu si xora u waraysano imisaad halkan ku joogteen 3 sidee ayaa lagula dhaqmay iska wacan mid ka mid ah gaadhka ayaa dhinaciisa taagnaa waxaanu iska dhigayay inuu walaalkii yahay raalli ahow kuma tahay adigu ani Ethiopian mani Malaysian Ethiopian wuxuu iska dhigayay Ethiopian You want to go?
waxaanu leeyahay waxaan u socdaa Sacuudiga ma dadkan ayaa idin soo qabqabtay ma lacag bay idinka rabaan isagii ayaa noo jawaabay oo leh maya haddana waxa uu leeyahay aniga ka mas'uula waxa uu matalayaa amaba uu iska dhigayaa inuu Itoobiyaan yahay oo kale luqadda ayaanu jajabinayaa waxaanu ku nidhi mana raaci karayaan waayihee يبغى سعودية يبغى سعودية What is he saying? He's saying that they want to go to Saudi Arabia. المملكة. They don't want to come with us. They need the money. markaanu gudaha u sii soconnay waxa ku yaala qol yar waxa uu leeyahay qolkan dumarka ayaanu u isticmaalnaa inaanu ku xarayno oo aanu ku xidhno waxaanu ka dalbaday inaanu gudaha galno wuuse noo diiday oo waxa uu yidhi cidi kuma jirto annaga oo maqlayna cod dumar ah iyo rag ku wada jira meesha kabahoodiina ay yaalaan askartuna waxayna leeyihiin ha garaacina albaabkan. Behind the door I can just hear voices. The soldier is told not to knock. We've just been told the room here is what the torturers use for rape. We can hear the sound of a man and a woman in the room. labadii gaadh ee dhinacyadayada taagnaana way naga tageen hadda marka waxaanu fursad u helnay saddex dhalinyaro ah oo si run ah noogu warramay waxaana yidhaahdeen waxa aanu ku jirnaa cadaab waxa aanu weydiinay sida ay ula dhaqmeen nimankani cishee ugu dambeysay waxaan iskaga jirnay xaalad garaacis dil ilaahay dee hanuu sahle weyna haddii reerka iyagu dee lacagtana bixin waayaanna way deena dilayaan cadibaad qof la mariyana da wayna ku samaynayaan waxa aanu weydiinay ma isku daydeen inaad baxso waxaa jira gaarna ilaashanaya haddaan isku dayno inaan baxsano waxay haystaan mooto qoryo wayna soo qabanayaan markaa isku maanan dayin markaa kadib waxaanu la kulannay ninkii sarkaalka ahaa ee aanu la ballansanayn ee seef waa ninka xukuma kaamkan oo amarkiisu ka socdo How are you treating the people here? Are you treating them badly? حرام هذا حرام هذا مش ما حد يعذب والله حرام ما نقانا نروحس عسكري يكون أنا ما صوق له ولا راضين بهذا الكلام أبدا ولا فيش حد يجيب القوة هنا. And what sort of relationship do you have with the local police and army? ما نقانا أنا وحاس بليس كي ملتري كي أنا وشقين ما كده حيسا وحنان قبلنا أدو وحي حدود هاي كساحة قدبان. هكذا يجي بنفسهم يدخلون كان يسألوهن ويروحون بفلوسهم. wax dumari hadda ma kula joogaan maya dumar iyo waxaas anagu ma qaabilno mana joogaan meesheeda shukran annaga oo dareemayna inay halkaasi ku jiraan cod dumar ayaa haddana ay naga qariyeen inay noo sheegaan inay meeshaasi joogaan dumar kadib waxaanu tagnay saldhig boolis oo ku yaalay goobtaasi waxaananu uga warranay xaaladii aanu ku soo aragnay halkaas The camp were released. halkan waxaa ku yaala ilaa 200 oo kaam oo dadka sidan loogu haysto haddaba ma jirto qolooyinkani cid ay ka naxayaan oo ay u jiid naxariisanayaan ilaa ay helaan waxa ay ka doonayaan kuwa badan ayaa ku dayacan dariiqyooyinka iyo wadooyinka dalkaasi Yemen kuwaasi oo waxay cunaan iyo meel ay seexdaan midnaba aan haysan The mortuary. war cid alla cidii halkaas soo marta mid aan u naxaynaay ma jiro anagu qof maan u naxnaa kaanu naxnayna waa kaanu ka qaadna waxa uu soo diro haddii aanu ka weynana waa karadhow haddii aan weliba idin sheego anagu hadday isha tahay hadday keliyaha tahay haddii ay beerka tahay haddii ay far dhaqaaqaysa tahay intaba anagu haddii aanu qofku wax ka weyno sideedaanu iibinaa waana xanoo jooga gaari xagga dambe furan marka adeerkii imanayo waar soo socaan ku leeyahay adeer annaga boolbool ku kala saarna sidii gawaadhide eedhade kaalay weliba kaa
حرم الرجال بيلبسوا لبس النسوان ويصيروا ياخذوا الاطفال سمعتوا ولا لا ويهربهم داخل شوالات او يبيعوه او منهم من يبيع مدري الكلى او يبيعوا الكبد او يبيعوا rag iyo dumarba waxa ay labisan yihiin dharka dumarka indhaha ayay xiran yihiin waa tuugo ku cusub waddanka carruur iyo dhalinyaro toona may reebin waxa ay ka soo afduubanayaan waddan kasta waxaa inta badan la xaqiijiyay inay kala baxaan beerka keliyaha waanu yaabannahay waxaanu ka yaabannahay waanu ka amakaagnay burcadad qaleedkan oo ummaddii dhammaysay ilaa haddana ma jirto cid wax ka qabanaysaa arrinta naxdinta iyo anfariir kale sharciga halkan yaalla ciddii lacag haysata uunbaa istaahisha inay noolaato oo ay ka badbaado dhibaatooyinkan faraha badan waa socod siraha iyo surimo saq dhexe la safrayo saacadaha lagu jiraana waa saxariir siloon iyo silicii noloshu saami qaybsi weeye sahankii noloshu qofka siduu ku sameeyey الصوماليين أضافوا عبء كبير على اليمن من ناحية كلاجئين، لكن يعني تعرضوا أيضا لبعض ضعفاء النفوس الذين يلتقطونهم سواء من قوارب عن طريق سماسرة أو يأخذونهم من الطرقات. ay u soo gudbaan xuduudda Sacuudiga in badan ayay la soo daristaa xaalad aad u adag oo ka naxdin iyo anfariirba badan xaaladii hore ee ay ku sugnaa wiilkan aad arkaysaan waxa ay waxyeeladani ka soo gaadhay xuduud waxaan idin hayaa dhacdo ka duwan goobaha Liibiya ama dhinaca Saharaha bal waxaynu eegi doonaa taariikhda dalkaasi Yemen halka waxa ka socota ganacsigaasi waa noocee dabcan waad isweydiinaysaa daawada ma aaminsan tahay in dunidan korkeeda aynu joogno in ganacsiga ugu weyn ee xilligan ka socda uu yahay ka shaqaynta ama ka taajirka xubnaha jirka bilaadanka iibinta biicinta xubsiibidda iyo waliba kaliyasaarka dacwaranka dadka bilaadanka ee jirkooda loo geystaa waxa uu ka noqday caalamka wax caadi ah oo waliba lacag badan iyo ganacsi fara badan laga sameeyo toddobaadkan waxaynu eegi doonaa dalka Yemen kumanaan tahriibayaal u dhashay waddankaasi Itoobiya iyo waliba Soomaaliya waxay u yaacaan dalka Yemen qaar badan ayaa la laayay meel ay jaaniya cirib dhigeen haddaba dadkaasi marka ay ku degaan xeebaha dad ayaa intay afduubaan isla goobtay kaga degeen doontaba ka haysta oo meelo ku xidha waa sheeko aan dadka loo sheegi karin jilbiska saxaraha ku jilaabto dadka war miyaad ka haysaan waa socodkii junuunka ahaa iyo jaahwareerkii jujuubka ahaa oo jihada marankiisu jidkiisu jahannaba la jaad yahay jawigiisuna daran yahay أوعى يحركوا من الرجال يعني حرم يتصبوا رجال يحركوا ويضربوا ضرب يكسروا iibsashada afduubka dhaca boobka jirka bil'aadamka ee loo geystay tahriibayaasha waxa ay noqotay waddanka Yemen arrin ay dhibaato dad badani kala kulmaan dadka ajaanibka ah falalka naxdinta badan ee isugu jira jilaabashada iyo afduubka ay kooxahan burcadka dad qaleedka ahi ee ku sugan waddankaasi ku fuliyaan ayaa noqotay mid ay si weyn ugu sii xoogaysteen waxaanay arrintaasi galaafatay boqolaal masaakiina oo markii horeba halkaa ku gaadhay si nafla caarida sanad walba waxaa badda ka soo gudba u dhaxaysa waddankaasi Yemen iyo Soomaaliya kumanaan tahriibayaal isugu jira Itoobiyaan iyo Soomaali kuwaasoo raadinaya nolol himilo qurux budhoodii ay ku xijaabato haddaba dhibanayaasha iyagu arrintani la soo daristay ayaa gabadh ka mid ah dadka iyagu halkaasi maray waxay ka hadlaysaa xaaladihii ay kala kulantay halkaas dumarka way khasbayaan raggana way gubayaan meel kastana way ku dhufanayaan wax kastana waxay kala baxayaan xataa indhaha qofka way la baxayaan
kumanaan ka badan inta qof ee lagu laayahay waddada halka qaarna afduub loo haysto kuwaasoo tacadiyo argagax leh lagu sameeyo muddada ay gacanta ugu jiraan kooxdan qowlaysatada ah ee budhcadadqaleedka dembiga ay u cuskadaan masaakiintan ayaa xukunkiisa ay ugu magacaabaan madaxaha ha ku furto ama ehelkaagu ha kaa bixiyaan qiimaha ay u jaraan bahallada halkaasi ku sugan waxayna kuwa aan la qalin ee xubnaha jidhka lagala bixin ayse u wajahaan cadaab iyo cadibaad aad u daran kuwaasoo la mariyo midka kiisa ugu xanuunka daran waxay ka gubaan jidhkoo dhan waxay la dhacaan mindiyo habeenka iyo maalintuna waa imtixaan adduun midka ugu hoogga badan milatariga dalkaasi Yemen waxa ay noqdeen kuwa ka qayb ah burcadad qaleedka waxaanay dadka u geystaan falal isugu jira tacadiyo afduub iyo iibinta dadka jirkooda oo halkaasi ka noqotay arrin suuq weyn leh sheekadani waa mid ka mid ah dhacdooyinka xaqiiqa raadintoodu aad ay u khatar badan tahay Saalax Sabri waa mid ka mid ah dadka si hor Ilaahay isu xilqaamay una ururiya isla markaana aasa dadka tahriibayaasha ee meydkooda lagu laayay halkan goobtani waa mid ka mid ah goobaha ugu weyn ee hilibka dadka lagu iibiyo lagana saaro kaliyaha beerka iyo meel kasta oo biic loo heli karo halkan kama gudbi kartid mana carari kartid waxaana ku hor taalla isbaaro ay ka shaqaystaan kooxahan isugu jira kuwa ka shaqaysta maandooriyayaasha iyo iibinta dadka tahriibayaasha maanta Saalax waxa uu aasayaa mid ka mid ah dadka Soomaalida iyo Itoobiyaanka ee sida bilaaxadka ah ugu qulqula kaasoo jirkiisa inta la qalay wixii laga soo reebay cidla lagu tuuray 200 3 4 كم مليان اللي رصاص في الحدود اللي مشنوق اللي يعني ضرب imise ayaa la dilay imise ayaanu aasnay tiro ma laha inta sidan oo kale loo dilayo ee aan sidan cilada aan uga helno ma la xisaabin karo inta miskiin ah ee meeyda ee aan la garanayn wax ku dhacay iyo waliba cid dishay waxaanay dawladdu tiraahdaa badanaa dhimasho caadi ah ayuu dhintay qofka waxa uu filimku ka bilaabmaa halkan biyaha markay soo gudbaan ninkani waa mid ka mid ah kuwa dadka iibintooda ka ganacsada wuxuuna ku shaqaystaa dooni ka badan xasuustiisu waana mid aan ka hadhin mahadhada xanuunka badan ee xasuusta aadka u qarraban ee dhibanayaasha gacanta uga gasha argagixisada dhaca jidhka bini'aadamku ay marsiiyaan dalkan Yemen hadda kama jirto dawlad xoog leh oo sharci cadaalad ah ku dhaqanta kuwooda ciidamada ah ayaa iyagu noqday qayb ka mid ah xulufada afduubta ee isla markaasi jirdilka dhaca hilibka qofka bini'aadamka ka shaqaysta kani waa mid ka mid ah dhalinta baadi goobaysay isaga iyo saaxiibadii inay shaqo iyo nolol ka helaan waddamadan carabta balse nasiib darradu waxay tahay wuxuu ku waayey laxaadkiisii jirdilkii dabkii iyo korontadii maalin walba ay ku fulinayeen ee isla markaasi ay ku samaynayeen burcadadqaleedku qaarkood baa ay dilaa qaar baa meel intay igu xidhaan madaxii foorariya dhowr habeen aan ku xidhnaadaa dhiigga sanka iga socda gacmaha iyo lugahana way iga jajabiyaan siday ii garaacayeen nolol adduun waan ka samray aniga saaxiibkay siday u dilayeen ayuu ku dhintay waa 23 jir isagoo soconaya reerkoodii ka soo ambabaxay wuxuuna hadda isagoo curyaana ku sugan yahay xerada qaxoontiga markii ugu horeysay ay afduubaan bahalladu wuxuu aabbihii oo iyagaba xaalkoodu yahay mid aad u daran maadaama ay qoyskaasi ahaayeen qoys danyar ah oo aad u faqiir ah ay ka codsadeen in naftiisa uu ku badbaadiyo lacag dhan $300 haddii la waayase qudha ayay ka jari doonaan waa hadalka ay ku gunaanadeen maskiinkan aad aragtaan ee sariirta dul yaal 3 maalmood gudahood ayaa aabbahay ku bixiyey lacagtii madax furashada ahayd laakiin nasiib darro ima ay siideen oo waxay iga iibiyeen budcad kale oo i qafaalatay muuqaalkani waa mid sir ah oo laga soo qaaday kaamka qafaalashada waxayna muujinayaan oo markhaati ka yihiin cadaadiska iyo gaboodfalka halkaa yaalla ee sida arxandarrada ah qofka bini'aadamka loogu cadibayo qaar badan baa sida loo garaacayo ku miirbeela qaar baa halkaas jidhkoo dhani dab looga gubaa
waxaa u sii dheer gaajo aad u daran waayo lama tuso wax naxariis ah inta badan waxaa lagu fuliyaa in keliyaha ama beerka laga siibo waxay masaakiintani u dhintaan rafaadka baaxaddegga ah iyo xanuunka xoogga badan ee ka soo mara muddada ay halkan ku jiraan kooxdii cusbayd ee qabsatay xaali waxay shuruud uga dhigeen in $250 ehelkiisu bixiyaan waa mar kale oo haddana ay koox labaadii ay qabsatay balse taasi ma dhicin oo reerkoodii awalba waxay ahaayeen faqiir aan awoodi karin mar kale inay lacagtaa bixiyaan waayo iyagaaba ahaa xaalkoodu kuwa aan sida caadiga ah u heli masaariifta nolosha kanna wuxuu ahaa rajadii qudhahayd ee iyaga u maqan way dhaawaceen si aad u daran ma isticmaali karo suuliga mar kale waxaana qof baarlaysidhah oo faali ku dhacay xaafi waa 23 jir mar kale dib umuusan lugayn xaafidoo qudha ma aha kuwa nasiib darradu ay ku dhacday tahriibtani ay asiibtay halkan xerada ah waa halka qudha ay badbaado ku heli karaan kaamka waxaa ka buuxa kumanaan la soo aftuubay kumanaan la soo kubsaday iyo kuwo badan oo tacaddi iyo xubsiibasho doocwareen ah oo jidhkooda xubnaha qaar laga saaray wuxuuna mid kasta hadda doonayaa inuu lagu celiyo waddankiisii maadaama xaalkii faraha ka baxay oo naftiisii ay khatar ku jirto qaar badan baa dareen farxadii ku jirto ku qiimeeyey siday u badbaadeen iyo inay noqonayaan waddankoodii iyagoo nool ifta waa gobol 17 jir ah waxay aabbaheed kaga soo safartay inay reerkooda gacan qabanayso asma gabadha midigta xigtaa waa 16 jir waxayna doonaysay inay u tagto walaasheed oo sacuudiga ku nool labada habloodba waxay gacanta u galeen bucdadgaleedkan naxariislaawayaasha ah muddo ku dhan 3 bilood ayay ku haysteen meelaha ay dadka xareeyaan ifta waxayna aad ugu xishootay inay waalidkeeda ama aabbaheed inay la hadasho oo tidhaahdo lacagta madax furashada ah iga soo bixi waayo waxay tidhi way igu adag tahay aabbahay wuxuu haystay aniga oo qodha wuxuuna sugayey aniga inaan wax u geeyo amaba qoyskayga aan caawiyo balse taasi waxay ku adkaatay ifraax inay wax lacaga ay weyddiisato waalidkeed waxayna u badheedhay halis kasta in nafteeda la marsiiyo intii ay taa samayn lahayd waxaa markaa kadib budhcaddii ay bilaabeen jidhkooda inay ka ganacsadaan maalin kasta ay ku iibiyaan rag fara badan kana kireeyaan qasab baannu ku daawannay sida ay u gelayeen hablihii kale ee naga horreeyey hortayada ayay qaar ku qabsadeen uu dhinaca sacuudiga ugu soo gudbiyo tahriibayaasha wuxuuna mid kastaa ka qaadaa 900 oo lacagta maraykanka ah oo dollar afrika ilaa dhulka sacuudiga wuxuu noo sheegay in ciidamada badda ee yeman ay ka qaadaan laaluush marka uu halkan soo gaadho قيادة الجيش قيادة الأمن السياسي قيادة الأمن العام تأخذ أجرتها معها مندوب العمل ciidamadu waxay naga qaadaan laaluushkooda waxayna leeyihiin wakiil u xil saaran hawshaasi si aanu shaqada u sii wadanno haddaan bixin weyno lacagta dabcan wax walba nooma soconayaan wuxuu ka qaaday tiro 40 qof ah taasoo ah mid aad u adag waayo aad buu u yar yahay laashka uu wato balse waxa kaliya uu danaynayaa waa in uu lacag helo wax kale uu dan ka leeyahay ma jirto sidaad aragtay shimbirahan daba socdaa waxay iyaguna ka wehelinayaan safarka kuwaasoo iyaguna ka dhar sugaya haddiiba cidii ay ku dhex dhimato doonidaasi ama laga tuurayo in halkaas iyaguna ay risiqooda ka raadsadaan tan iyo halka ugu horraysa ee ka soo fuulaan iyo halka ugu dambaysana waxay yihiin kuwo safarkooda uu ku lamaan yahay isla markaana sugaya ilaa inta qof uun loo soo tuurayo goobtanna marka ay soo gaadhaan waxaa halkaasi ku sugan kuna sugaya afduubayaal kale oo ka ganacsada jidhka qofka bili'aadamka halkanina waa goobta ay ka haystaan intaanay ku nagaanin oo aysan nasanba in ka badan 10,000 oo qof ayaa bil walba halkan ka soo xaadira kuwaasoo raadinaya inay helaan nolol wacan oo ta ay ka haajireen ay kaga baxaan waxayse afka uga galaan khatarta midda ugu daran ee bili'aadam naftiisa uu marayo markay halkan soo gaadhaan ma jirto wax lacag ah oo jeebaddooda ku hadha waxaa marka horeba ka farmaroojiya waxa yar ee ay
sida naflacaariga halkan la yimaadeen raaca ugu horreeya burcadadqaleedka waxaannu xerada qaxoontiga kula kulannay haali oo ah dhibyaano ay tacadiyo si arxandarra ah ugu geysteen kooxdan bahallada ahi wuxuu yidhi burcaddu markaannu badda ka soo baxnayba oo gaadhnay xeebta markiiba wayna qabteen markaas oo ayna xidheen ilaa ay naga dalbadeen lacag madax furasho ah dadka qaar aan lacag haysan waxay kala baxaan keliyaha qofkii awoodi waaya in lacagta lagu xidho uu iska bixiyo wuxuu yidhi waxaa halkan ku sugnaa burcadadqaleed aad u badan oo aan naxariis lahayn oo naxariis laawayaal ah mana fududa siduu qofku uga baxsado ama loo sii daayo ilaa reerkooda ay lacagta bixiyaan inta ay i qabteen oy meel walba iga xidheen ayay habeen iyo maalinba i jirdili jireen waxay iga gubeen haragga jidhka oo dhan ilaa reerkayagii ay khasab ku noqotay inay bixiyaan lacagta la ii haysto taa waxaa ka sii daran markay i gubayaan waxay xanuunkayga maqashiin jireen waalidkayga intay taleefonka u garaacaan waad aragtaa meelaha ay iga gubeen qorshaha dhallintan socodka ah ayaa ah inay shaqo u tagaan waddanka sacuudiga balse nasiib darro waxay burcadadqaleedku ku haysteen cidlo muddo ka badan 20 cisho waddadanna waa halka ugu horraysa marka ay xeebta ka soo degaan ay soo maraan tahriibuhu waddanka sacuudigana waxay in ka badan 550 kilomitir ka bilaabaan inay u lageeyaan halkan taasoo ay ku qaadato haddii ay nolol ku tagaan muddo ku siman 40 maalmood ama in ka badan in halkaa ay u sii socdaan. Saudi. What do you expect to find when you get there? في المزرعة ولا بقر ولا إبل ولا غنم كله على كده. Have you had any trouble so far making this journey? أيوة يمسكوا يفتشوا هنا قدام يروح ما في زفل إلا على طول الزفل تروح تعال يقول له بعدين هنا يسوي جلس بعدين يسوي تفتيش يشيل فلوس. Who took your money and where did this happen? في شيبة يأتي في شيبة كبير متواضع بعدين يشيل شباب كله شباب يسوي تفتيش يسوي كوف يدرموا كلام بعدين يشيل. waa mid aad u khatar badan inay socdaan habeenkii waayo socodka aan nasashada lahayn ee 500 ee kilomitir ee saxaraha iyo jawiga darani waa mid aad ugu adag in qofku sii wato socodkiisa waayo waxa ku lamaan hafi kulayl iyo haraad aad u daran daawade socodkan januunka ahi waa mid qalbi jab iyo aad u murug